kani waa tareenka madaxweynaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un waa gaadiidka kaliya ee uu madaxweynahani adeegsado marka uu dalkiisa ka safrayo. waa tareen gaashaaman oo aysan hubka fudud iyo qaraxyadu karin. marka uu soconayo waxa uu heliya 2 tareen oo kale oo uu mid ka dambeeyo midna ka horeeyo. isteeshanada uu istaagayo waa kuwa cayiman oo gaaraya 20 isteeshan. waana ka mamnuuc dadka caadiga ah inay ka soo agdhowaadaan oo waa sida xiriyo ciidan. gudaha tareenkan ayaa loo hagaajiyey sida hodheelada oo kale. waxa ku yaala hoolal waaweyn oo xaflada lagu qabto, xafiisyo lagu shiro, goobo lagu dabaasho, qolal la seexdo, iyo sidoo kale makhaayado cuntada loogu kariyo. Kim Jong-un iyo dadka la socda sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn caafimaadka oo waxa la socda tareenkan tiro ka mid ah dhakhaatiirta ugu tayada sareysa waqooyiga Kuuriya, kuwaasi oo ay hawshoodu tahay ka warhaynta caafimaadka Kim Jong-un. dhinaca kale waxa ku rakiban madaafiic awood u leh inay burburiyaan wax kasta oo isku daya inay waxyeelo u geystaan tareenkan. daaqadihiisa iyo dhammaan derbiyadiisana waxa lagu sameeyey biro gaashaaman oo u diidaya waxyeelo kasta oo uga imaan karta hubka noocyadiisa kala duwan. halka qaybta hoose ee tareenkan loo diyaariyey inay u dulqaadan karto qarax kasta oo lala eegto. maadaama uu saaran yahay tareenkan mid ka mid a madaxda loogu raadinta badan yahay adduunka. sidoo kale marka uu soconayo ma socdo keligii, balse waxa uu heliya 2 tareen oo kale oo uu mid ka horeeyo midna ka dambeeyo. tareenka hore ayay hawshiisu tahay inuu sii kaantaroolo siina baaro isteeshanada uu ku hakanayo tareenka madaxweynuhu, halka tareenka dambena ay la socdaan ku dhowaad 100 askari oo ka tirsan ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee waqooyiga Kuuriya oo ay hawshoodu tahay inay sugaan amniga Kim Jong-un inta uu safarka ku jiro. tareenkan oo loo yaqaano tareenka qalcadda ah ayaa ah tareen uu ka dhaxlay Kim Jong-un awowihii Kim Il-sung. Kim Il ayaa markii uu dhintay xilkana uu la wareegay Kim Jong-il oo ah aabaha madaxweynaha hadda maamula waqooyiga Kuuriya. safaradiisa dibadda uu adeegsan jiray tareen la mid ah tareenkii uu adeegsan jiray aabihiis, isaga oo aan weligii adeegsan wax diyaarad ah maadaama sida la sheegay uu ka baqi jiray in la shirqoolo. isaga oo diyaarad saaran badanaa safarada uu geli jiray ayaa u dhexeeyey Shiinaha iyo Ruushka. safarkii ugu dheeraa ee uu ku galo tareenkan ayaa ahaa safar uu galay sanadkii 2001 isaga oo ka tegey magaalada Pyongyang una safray magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. wuxuuna safarkan ku qaatay 24 maalmood oo xiriir ah. sanadkii 2011 ayuu Kim Jong-il ku dhintay tareenkan dhexdiisa, isaga oo u dhintay wadna istaag kadib geerida aabihii. markii uu la wareegay xilka, Kim Jong-un ayaa sii waday dhaqankan ay aabihii iyo awowihiiba samayn jireen ee ahaa adeegsiga tareenkan. Kim Jong-un sida aabihii kama boqo diyaaradaha oo sanadkii 2018 markii uu Donald Trump kula kulmayey Singapore wuxuu raacay diyaarad uu ka kiraystay dowladda Shiinaha. sidoo kale 2014 muuqaal xayeysiis ah oo laga duubay Kim Jong-un ayuu ka soo muuqday isaga oo diyaaradda wada. sidaasi oo ay tahay haddana Kim ayaa weli ku dheggan dhaqankan ah adeegsiga tareenka, maxaa yeelay badi safaradiisii dibadda ee uu galay wuxuu aaday isaga oo wata tareenkan. maadaama uu yahay tareenkan sidaynu soo sheegnay mid gaashaaman, culayskiisuna yahay mid aad u culus, tareenkan ayuu xawaarihiisu yahay mid aad u gaabiya, isaga oo saacaddii jara ku dhowaad 60 kilomitir oo keliya. safarkii uu Kim Jong-un ku tegey dalka Vietnam si uu ula kulmo madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump waxay ku qaadatay ku dhowaad 65 saacadood oo xiriir ah, halka haddii uu diyaarad raaci lahaa ama tareen caadi ah oo sidan aan u gaabinayn ay ku qaadan lahayd saacad ama 2 saacadood oo keliya. waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid sababta uu Kim Jong-un weli u doorbidayo tareenkan isagoo oo awooday inuu sida madaxda kale adeegsado diyaarad loogu talagalay oo gaashaaman waxna aan la gaarsiin karin. sababta ugu weyn ee uu weli Kim Jong-un ugu dheggan yahay tareenkiisan ayay wasaaradda difaaca waqooyiga Kuuriya ku sheegtay 2 arrimood. waa mide waxay sheegeen in haddii ay dhacdo in la weeraro diyaarad uu la socdo Kim Jong-un uu fursadda uu ku badbaadi karo ay 100 jeer ka yar tahay fursadda uu ku badbaadi karo haddii tareenkiisa lagu soo weeraro. sidoo kale waxay sheegeen in diyaaradaha ay sahlan tahay in la ogaado jihada ay u socdaan, halka tareenka ay adag tahay in la garto meesha jihadiisu ay tahay.
arrintan dambe ee ah jihada ayaa waxaa dhacday in sannadkii 2018 markii uu Kim Jong-un u safarayey dalka Singapore si uu ula kulmo Donald Trump inuu shaaciyey xafiiskiisu in Kim Jong-un uu raacayo diyaaradda loogu talagalay madaxweynaha dalkaasi oo ay sumaddeedu tahay Shamai hal. wakhtigii lagu heshiiyey inay soo kacayso diyaaraddan ayay si dabiici ah uga soo kici tintay dalka waqooyiga Kuuriya iyadoo u soo jihaysatay dalka Singapore. laakiin arrinta la ogaaday markii ay timid diyaaraddan ayaa ahayd inuusan soo raacin Kim Jong-un balse ay ka ahayd xeelad amni isaga oo taa beddelkeed raacay diyaarad caadi ah oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Shiinaha. mar kasta oo uu Kim Jong-un damco inuu ku safro tareenkiisan, warbaahinta caalamka oo idil ayaa bilowda falanqayntiisa iyo inay tooshka ku iifiso. talaadadii shalay ahayd ayuu Kim Jong-un soo gaaray dalka Ruushka kadib 4 sano oo uusan gelin wax safar dibadeed ah. Kim ayaa gaaray magaalada Vladivostok si uu jaamacad ku taalla magaaladaasi ugala kulmo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay ka wada qaybgelayaan shirweyne lagu qabanayo halkaasi. tan iyo markii uu talada waqooyiga Kuuriya la wareegay sannadkii 2011 waa markii sii 7 ee uu safar dibadeed u baxayo.